gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa soo gaadhay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil. Gudoomiyaha ayaa kormeer ku soo sameeyey goobaha laga bixinayo kaadhka codeynta ee magaalada berbera. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil ee xisbiga ucid mudane aadan. gudoomiye kusoo dhowow magaaladaadii magaalo xeebeedkii oo kaadhkii la qaadanayo oo nabada kusoo dhowow gudoomiye kaadhkii oo la qaadanayo way socdaa wuxuunbaa halkan ka taagan yaroo caqabado dadkii way xagaabixeen burcay iyo hargeysa way xagaabixeen dadkii dabeed kaadhku yaallaa cidina may soo gurin muddadiina way dhowdo 2 cisho ka hadhay arrinkaasaa gudoomiye u baahan laga howlgalo waayo marka deegaanka la eego dhan tuulooyinka mooyaane oo si fiican oo soo marro goda weyn iyo meesha la dhaho Gdays si fiican ba kaadhka loo qaatay deegaanka guud ahaan tuulooyinka oo barwaaqaysan oo dadkina way degan yihiin laakiin si meesha la dhaho Sheekh iyo halkan ba dadkii la soo guray ma iman oo kaadhkoodu way yaalaan halka gudoomiye waxaan uga faa'iideysanayaa in maxaan ku dhahaa arrinka laga tashado si dadkii loo keeni lahaa ama muddadii wax leenoo kordhin lahaa si dadka kaadhka u qaato intaasaan gudoomiye halkan uga faa'iideysanayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa ku soo dhowow baan ku leeyahay mar labaad magaaladaadii. waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogno magaalada berbera mustaqbalkii Soomaaliland. berbera waxa weeye waa hooyada Soomaaliland waa sodada Soomaaliland berbera waxaan maanta markaan soo galay waxaan tusay qoladii ila socotay 56 fooqan ku jirnay waxay ugu jawaabeen haddaan 56 halka ku jirsan fooq ah haddaan 60kii Soomaaliya ku darsamin maanta Soomaaliland waxa ahaan lahayd Singapore oo kale yani halkii marinay beriga 60kii horteed intii aanaynu ba'in taladeeni iyo qarankeeni aynu sida hawlka yar u dhiibnay halka berbera marisay iyo Soomaaliland iyo maanta halkan marino wax farq leh oo dhaxaya taas waxa weeye waa go'aanimada aynu iska tuurnay ee Jabuuti ku adkaysatay ee diiday 77 inay ku soo darso Soomaaliya maanta waxa leeyahay halagu faraaday Soomaaliland jiritaankeeda ana waxyaalaha aan ugu adkay waxa weeye waxaan u garaadaysanaa oo Soomaaliya ugu fiican inagoo ugu camiran inagoo ugu taajirsan inagoo ugu tacliin badan maanta inagoo u hooseyna baasaboorn barna Djibouti saniye shanaadeen u dagaalanay jabadii u horeysay oo ogaadeen liberation muxtaar inaga sameynay markay leeyihiin on ay la fiyo teena ka horeysay shanta Soomaaliya inaga u baaqi jirnay ya maanta inaga u liidana marka horta qarannimada waxa lagu adkaato yaanu sida awliyaasheen iyo aabayaasheen yeeleen ee isku xumeynayeen yaan dalkeen dhiibi waxa berbera leeyahay waan ka xumahay maanta berbera inay dadka xagaaga uga baxeen koronto la'aan leer la'aan heshiiskii aanu galnay eenu ku bixinay runwayga imaaraadka waxa inoogu jiray in la sameeyo power station weyn oo berbera laga dhiso iyo garoon diyaaradood oo inoo bedela ka militarigan bixinay iyo karidoorkaas saddexda arrimood ayayna weydaarsanay wixii kaashaleena siin lahaa saddexdii maanta ma muuqdaan saddexdiiba ma muuqdaan wata maanta magaaladeeni laga xagaa baxay aan doonayna noqoto magaalo la dhisto oo noqoto wajigii Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ay noqoto hab wataas marka waxaan leeyahay maantana kaadhka la qaato waxaan leeyahay dadka commission aan ka codsanaya in berbera saaxil loo kordhiyo 3 maalmood oo dadka laga soo guriyo togdheer wata shaqadu ka dhacay togdheer markay nabadda la gaadho si dadka loo soo guri lahaa oo sheekh loo keen lahaa inuu qof ayaan ka codsanaya waxa kale ka codsanaya wax garadka iyo dhalinyarta reer saaxil in gacmaha la isqabsadaa oo 3 maalmood hadhay iyo arrintan ka weydiiyay magaranayay commissionka ay dabagal ku sameeyaan oo inta hadhay dadka la soo guraa oo tartantaan waa magaaladeedii ku bartay macaamada la iga saaray macaamada Turkiga aan waa Singapore tiis aan bariga Hong Kong iri insha Allah taala saasi noqon doonta waa salaamantiin ilaa khayrina siiyo ilaa dalkeen dal jira ka dhigo
ilaahay quluubkeena haysa siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala doorasho nabad ah oo wanaagsan oo madaxweynaha inoo dhacdo